kale fajac iyo la yaab ay ku noqonaysaa ehelada Cabdikariin qalbi dhagax oo qaarkood baaqaan ay dawladdu u direen maalmo ka hor taasaanu ka mudaharaadina dalabkanaguna waxa weeye Cabdikariin hala soo celiyo dalabkanagu inta weeyaan dawladda ka codsanino waxaana lagu yiri waxa la fadhiyo seer wasaaraha waxaana lagu yiri wafti Soomaaliya ka socota la fadhiyo annaga daraankanagu wuxuu lahaa maanta Soomaali way midowday marka ayada saatay waxaan ugu xigtay Cabdikariin Sheekh Muuse waa la dhiibay annaga daraankanagu waa isqaybin qolana waxay tii ma dhici karto qolana waxay tii Soomaali way ka dhactaa madaxdeeda saadaan ahayn walaal annaga Cabdikariin Sheekh Muuse waxa la dhiibay isniintii in Muqdisho lagu jirdilay oo lagu jirdilay beesha fiisada Itoobiya loo sameeyay oo markuu safaaradda soo galay uu dareemay Cabdikariin in la dhiibay xaqiiqatan muxuu ilaanagu mawaadir Soomaaliyeed baa ay ummadda Soomaaliyeed saah ila dhaqmin galiya nololba waan galay waa la jirdilay waa la kaxeeyay rag Soomaaliyeed oo madax sheeganayaan kaxeeyay airportka uu ka dagaalamay waa la soo kaxeeyay rag Soomaaliyeed dhan meel bi iska saaray Uganda isbaa loo dhiibay xalanaana lagu jirdilay Cabdikariin Sheekh Muuse asagoo mawaadila talay Soomaaliya Abbas Hussein Sab TV